عليكم أنا أكو هذا مجا عددك بركة عياش اللي جسوا بركعية مجالة الأسعان ذا قبل كسال رنتي دد كان عدو شدان وعدد لسوا بركعية مجالة الأسعان واحد مجاله هرومر هيك سنة شن يتمن كاسر أي سومال هو دكتور الناس مجالة أسوح هيك سنة هرومر لكن شن يتمن كاسر دد كاسمير ربين معمول كهالك كتريا مجالة واحد كدعي كعدون كاس واحد كان دد كاسي واحد هذا أركتي عدد كاس إنه يسن ربين معمول كهالك كتريا تاسيو كنت إن معمول كاسي إن أركتي لها واديك سدي مجالة أسوح هاد مجالة عمران وحبرشالة جواب عافمات له وحول بصعدان دad horumar higsanaya dadkii maamulkaas wuxuu tusay colaadii iyo nacaybkii uu qabay magaaladaas waa la barakiciyay waa la burburiyay dadkii hantidii guur waa la burburiyay dadkii wax baranaya waa la laayay dumarkii dadkii vulnerable groupka ahaa macnaha dhibaatadu saameynay sida dumarkii caruurtii waa la barakiciyay qaar waa la dilay qaar magaaladoodii baa laga kiciyay taasi waxa ku keenay dadkaas nacaybkaas maamulkaas uu hayay hadda waxaan u sheegaynaa adduunweynaha nacaybka uu musabixu qabay dadkaas inuu hadda soo baxay dadkii qaar waa la barakiciyay meel ay u barakacaan ma haystaan cunto ma helaan biyo ma helaan markanaco inay ka galaan kaneecada ma haystaan cunto ma haystaan waxay u baahan yihiin humanitarian response ama gargaar bini'aadanimo waxa jira dad caruur oo horumar higsanaya oo rabayna waxbarasho dhigtaan horumar gaaraan mustaqbalkooda ka fakaraan runtii dadkaas waxa loogu talagalay in qayb la laayo qayb la dido hospitaaladii danta guud ee dadka lagu daweynayay dadkii madaafiicda lala dhacay in la laayo dadkii oo dib loo laayo taasina waxay xuquuqda bini'aadanka meel kaga dhacaysa dadka waxa loo geystay waxyaabo aan magaalada waxa loo geystay waxyaabo criminal oo xuquuqda bini'aadamka soo horjeeda taasoo ah in dadkaas loo adeegsay madaafiic aan loo meeldayn caruurtii baa la laayay dumarkii baa la laayay hantidii guur baa la laayay hantidii guud ganacsigii baa la laayay oo macnaha dadkii laga barakiciyay soo waxaan ka codsanaynaa adduunweynaha iyo hay'adaha caalamiga ee deeqaha bixiya kuwa humanitarian response-ga sameeya in dadkaas lala soo gaaro waxyaabihii u baahan dadkan waa la barakiciyay waa la laayay meel kasta oo kamid ah gobolka Sool ama xayndaabkaas way ku barakacsan yihiin dadkaasina waxa markaad eegto wajiyadooda ma qiyaas kara qaar waxay ku hoos nool yihiin geedaha hoostooda waa gabaad ma haystaan meel ay ka galaan qoraxda iyo kulaylka iyo milicda ma haystaan dadkaas waxa saa u geystay waa maamulka loo yaqaan musabixi ee isku magacaaba Soomaaliland annagu wax Soomaaliland loo dhaho ma naqaano waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo aan ka go'ay karin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laasacanood waxay ka mid tahay 18 gobol ee Soomaaliya wax gooni goosada anagu ma yeelayno mana nihiin waxaan nahay dadka meesha ama regionka ku nool waxa weeyaa qabiil la dhaho dhulbahanta wuxuu ka mid yahay qabiilada Soomaaliyeed wuxuuna rabaa inuu noqdo Soomaali midaysan buu doonayaa musabixi waxa ku nool ma noqon karo dawlad musabixi waxa weeye waa qabiil la dhaho Isaaq is not Soomaali way diiday inay Soomaali noqdaan soo waxaan codsanaynaa inay wadankeeda iyo magaaladeeda nooga baxaan kacdoonka magaalada ka dhacay ee dadka saa loogu barakiciyay dadkaasi waxay soo cabireen aragtidooda ku aadan inay yihiin Soomaali si indhalaan dadkaas loo laayay waa maxaad u soo cabirteen aragtidiina dadkaasi waa Soomaali dadkaasi waxay ku barakacsan yihiin regionska kamid ah Sool aageeda hadda meesha aan ka hadlayno waxa loo yaqaan degmada xudun waxay ka tirsan tahay gobolka Sool dadkaas waxay ku nool yihiin dhirta hoosteeda waxbarasho meelaan cunto meelaan waa dad la barakiciyay dadka la barakiciyay hay'adaha caalamiga waxaan u sheegaynaa waxa barakiciyay waa maamulka Musabix Cabdi wuxuu wadanka ka geystay waa criminal waa dambiye dagaal waa loo qabsanaya annaguna aragtidayada baan ku taaganahay inaanan doonayn maamulka Musabix Cabdi